السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمارك محمد علي مدح برنامج هون كابيتال نتورك. اللهم صل على سيدنا محمد. waxaan doonayaa halkan inaan ku iftiimiyo erayga leverage oo aan arkay dad badan inay sharax khaldan ka bixinayaan meelo dad yara dhigtay Google-ka iyo professor Siri Malas wax fulaydiya oo tusaale ahaan soo qaatay inay leverage tahay deyn broker-ka uu ku siinayo. marka waxaan doonayaa yara iftiimiyo macnaha leverage waa eray suuqyo kala duwan loo isticmaalo iyo industries kala duwan. waxa weeyaan isagoo isku macnaabo erayga qolba dhinac u qaata. marka erayga markiisii hore waa eray ka yimi qolada science-ka physics-ka. مثلا concept ahaan waxa weeyaan macna kale ma aha. waxa weeyaan waa in aad dadaal yar bixiso si aad natiijo weyn u hesho. natiijo weyn u hesho inaad marka hore input ka bixinayso dadaal yar leh. مثلا mala Soomaalidu dhaqanka iyo waxbay ku fahantaayeen. مثلا tusaalaha miyiga oo kale marka la joogo ceelka la dhaaminayo oo wadaanta wata xariga oo wadaanta ceelka ka soo dhawayso biyaha tamar badan baa ka baxaysa si aad biyo badan u dhaamiso. marka waxa jirta ceel dhifan ku arkay bahalero nooyaf Soomaaliga wax lagu yiraahdo pulley la yiraahdo laba qorinta dhinacyada ka taagto xagga sarana mid ayaa wheel yaro marka xarigana saa inta xarigana dhaxda saa looga soo geliyo ayuu wuxuu bedelayaa dhaqaaqan buu direction ku bedelayaa movement-ka xariga ayuu direction ku bedelayaa. marka hore xariga kor baad u jiidaysay waxa weeyaan oo tamar badan ba ka baxaysay markan hoos baad u jiidaysaa oo markii hore waxaad opposite ku ahayd gravity-ga dhulka iyada opposite ku ahayd markana xagga dhulka la xoojiyaysaa. marka waxa weeyaan shaqadii waa ka fududaanaysa. marka macnaheedu waxa weeyaan inaad dadaal yar inaad bixiso si aad natiijo badan u hesho. marka biyo badan baad dhaamin karaysaa adigoo energy iyo tamar yar ay ka baxayso. marka original fikradan sharaxeedu wuxuu ka yimid marka hore leverage-ku qolada physics-ka science-ka. haddii mesela qolada business-ka oo kale sida iyagu markay qaateen erayga waxa weeyaan waxa mesela waxa loo isticmaalaa marka business-ka laga hadlayo kale Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. مثلا lacag baad soo amaahday meherad yar baad isticmaalay waxa weeyaan lacag baad soo amaahday lacagta aad soo amaahday dadna the input-ka aad business-kaaga gelisay raasamaal yar buu ahaa wax yar buu ahaa laakiin lacag badan baad soo amaahday oo cid ka soo amaahday dadna lacagtii aad soo amaahday iyo raasamaalkaaga yaraaba isu geeyo waad hawl gelisay dadna macaash bay keeneen. macaashka soo baxay waxa weeyaan dad markuu soo baxay macaashkii waa deyntii dadkii lahaa u celisay deyntoodii. waxa weeyaan macaashka uu ay keentay deynta lacagta aad soo amaahatay wax kale ma aha waa leverage. wax kale ma aha leverage waayo macaashkaas wuxuu noqon karayay 20%, 30%, 40% buu noqon karayay iyadoo aan maxay deyntu aanay isbedelin. iyadoo aan deyntu isbedelin inaga islaam ahaan haddii qolada reer galbeedka kale mesela deyntu iyadoo koskeedu uu xadidan yahay bay isticmaalaan waayo interest bay ku soo qaataan deynta. markaana deyntu way xadidan tahay koskeedu waa la garanayaa oo kuma xidhna macaashka. في الإسلام هان إنه تين وكلام مركن قال لنا وحويا مثلا دينتي وتسيدي كويس لكن دينتها سول جوجلا معاشك أي سمايسي وحويا وح كلمة هذه هو leverage ويكوتها قوة finance كنا أنقاب كاسة متصالحان كوبيحن كرا دينا عكلا كلا دان كأجو مثلا هذا دان كلا كأجو ما نقول بمجال ده ودي أركتان والجابا waxa weeyaan qof haday taalkiisu baada intuu qaadi karo la garan karaa hadana waxa arkaysaa qof dhan baa gaari qaadaya qof dhan ee gaari qaadaya
jeeg yar buu ku qaadayaa dadna uu ku dalacayaa gaari miisaankiisu dee weyn yahay 1 kiilo iyo wax ka badan ayuu qaadayaa qofkii oo deegaankiisa 60 kiilo ah oo 20 kiilo aan dhaafsanayn taa wax kale ma aha waxa weeyaan wuxuu isticmaalay qofku leverage buu isticmaalay jeegan yar baa waxa ku jira factorkii times gareynaya awoodaadan ayaa jeegan ah marka ismaad weydiin adigu oo isma qiyaasin ratio-da ah culayskan intan leeg iyo tamartaada ratio waxa maad xisaabin wada lacday waxa weeyaan waayo caadiyan macquul ahaan gaariga weyn waxa qaadi kara lahaa marka hore shay daadiga ka taal weyn ba qaadi kara lahaa adigoo dhuuban oo waxaan ku ro 60 kiilo ah maad qaadeen gaari weyn maad qaadeen oo culus waxa weeyaan leverage baa jira marka leverage macnihiisu wax kale ma aha waxa weeyaan waa inaad input yar dadaal yar geliso oo ah dadna aad natiijo weyn u hesho مثلا hadii aan ku noqdo مثلا qolada finance oo kale operations marka laga warramayo مثلا business baad abuurtay business ka aad abuurtay waxa weeyaan kharash baad dabcan cost waxa weeyaan wuxuu kala marka wax soo saarka aad sameynayso marka rabto inaad xisaabiso qiimaha uu kugu kacay laba shayba oo la eegaayo wax la eegaa kharashka aad gashay ee isla bedeli og hadba wax soo saarka marka wax soo saarku kordhaba kharashka isla kordhaya kharashka la eegaayo kharashka isagoo xadidan ee cayiman ee ama wax badan samee wax badan soo saar ama wax yar soo saaro ay mar walba compulsory tahay inaad kharashka gasho kharashkana waa la eegaa marka shaygu inta uu kugu joogo waxa lagu helaa kharashka isla bedeli og wax soo saarka oo loo geeyay kharashka cayiman ee xadidan ee soo compulsory-ga mar walba inaad gasho oo loo qeybiyay wadarta guud ee wax soo saarkaaga loo qeybiyay markaas aad helaysaa shaygu inta kugu fadhiyo mesela hadii 10 kugu fadhiyay ala shay kharashka isbedeli ogi 300 kuna oo ahaa kharashka guud ee mar walba inaad gashaa 310 kiilo loo geeyay 300 kun oo loo qabiyay mesela wax soo saarkaaga 50 kun oo shay ah ala shay wuxuu ku fadhiisanayaa 16 boqolkiiba 20 dad saartana marka 20 bad ku iibinaysa taasoo ay macnaheedu tahay hadii markaad iibiso ilaa 30 kun markaad iibiso oo shay waxa weeyaan kharashkii guud uu isdaboolay wixii ka dambeeya price-ka saad doonto bedelisa dad doonto toolaad ka dhimaysa marka macnaheedu waxa weeyaan in aad macnaheedu waxa weeyaan kharashka cayiman ee xadidan inaad ka faa'iideyso marka mar walba mesela waxaanu 300 kun weey مثلا marka ugu horeysa waxa soo saartay kun baad soo saartay hadii 300 kun loo qaybiyo waxa weeyaan mar walba waxa weeyaan shaygii ala shay waxa kala soconaya mesela 300 baa kala soconaysa marka dambe waad kordhisayo ilaa aakhirka waxa soo saartay wax soo saarkaaga wuxuu noqday 50 kun oo 300 hadaad u qaybiso waxa weeyaan 6 baa kaga soo hagaagaysa waxa weeyaan macnuhu kharashkan cayiman ee xadidan ayaad ka faa'iideynaysaa mar walba marka wax soo saarkaagii aad kordhiso wax soo saarkii wuxuu kordhayaa iyadoo aanu kharashkaas isagu compulsory-ga ah aanu kordhin marka kharashkaas aad kaga faa'iideysay iyagu xaqaana marka waxa weeyaan markuu wax soo saarkaagu bato ilaa uu kharashkaasi gaarayo heer marka wax ka soo qaad yeelan waayo mar walba marka dambaysa hoos buu si yaraanaya kharashka kaga aadanaanaya wax soo saarka ala shay marka waxay gaaraysaa heer aakhirka kharash lacagtaasi waxay ku tahay yaraanaysaa maadaama aad ka faa'iideysay cost-kii marka isagu aan isbedelayn aad ka faa'iideysay lacagta ku baaqanaysaa waxa weeyaan faa'iidada adiga ku tahay laakiin ama marka jeebka waad faa'iido ahaan baad u haysan ama waxaad sub dhaafin macaamiisha oo waxaad isticmaalaa inaad qiimihiisa wax kaga iibinaysid
aad ka jabiso oo aad wax ka dhinto oo macaamiisha uga faa'iideyn waa sababta مثلا China oo markuu kharashka xadiday compulsory ah ayuu wax soo saar badan u sameeyay waa sababta ay alaabadiisu uga jaban tahay alaabo badan oo wadamada dhigiya qodobka finance kuna markaa haddaan xagga isku soo wada duubo waxa weeyaan raasamaal yar markaad hawl gelisay input yar baad hawl gelisay raasamaal yar markaad hawl gelisay lacagta aad soo deysatay macaashka keentay waa ku leverage haddaad space yar bagcad yar ka faa'iideysay oo wax soo saarkii aad kordhisay ama aad kharashkii compulsory-ga ha ka faa'iideysay oo qodobada business ku xidhan fixed cost iyo variable cost bay yiraahdaan af Soomaali ahaan baan isla ku fududay marka fixed cost hadaad ka faa'iideysay oo uu yaraaday waxa weeyaan aakhirkiina uu noqday wax ka soo qaad u yeelan waayay sanaati uu noqday inta kaga aadan مثلا انت kaga aadan calaashay wax soo saarkaagan macnaheedu waxa weeyaan lacagta baqatay leverage bay ku tahay waaye Allahumma salli ala waxaan arkay dad forex-ka waxa weeyaan dhawaan ka war helay iyo qaar aan kaba shaqaysan oo aan forex-tan kuba jirin oo sharax khaldan ka bixinaya شرح خلطان كبحنايا كلمة leverage وكشيء إنه تهاي دين ما أها totally دين مال كم صار قشة account كاج الدين هان وقال ميسو دين هان كم موقن ميسو العقد معها لسداف صديو دين هان لوسية account كاج كم موقن يسمعها حتى ميد electronic على لسداف صديو electronic على account كاج كم موقن يسمعها مرنا ومال لبا كم صار قشة waxa weeyaan qolada economics waxa oran jireen economic factor shayga hadii aad wax ka dhinto waxna ku kordhiso ay isbedelayaan variables kale ashyaa kale ay isbedelayaan soo ma oran jireen economic factor wax kale ma aha leverage waxaan ku macnaynaynaa inay tahay trade multiplier ama waxa weeyaan waa trade mechanism aad ku gali kartid contract weyn aad ku gali kartid waayo marka aynu joognay mesela lacagta caadiga ah units baynu isticmaali jir laakiin marka laga hadlayo forex-ka waxa la isticmaalaa lots baa la isticmaalaa waxa weeyaan standard lot waa $100,000 way sida standardka ah marka macna wax kale maaha waxa weeyaan halkaagan dollar imsa jeer ba awood loo yeelay 100 jeer ba awood loo yeelay halkaagi dollar wuxuu la qiimeeyahay oo uu gooynayaa $100 $10,000 waxaad ku gali kartaa contract ah 1 milyan macnaheedu waa sida waxa weeyaan waxa lagu dhuftay factor-ka ah times garaynaya marka waxa weeyaan waa halkaagi dollar oo qiimo loo yeelay purchasing power loo yeelay waxa weeyaan leverage waxa weeyaan waa trade multiplier waxaan ku macnaynaa trade mechanism contract intee leg baad ku gali kartaa waxa weeyaan raasamaalkaagan yar weey laakiin lacag lagu deemiyay maaha akoonkaaga mid galaysa maaha mid si kale lagu siiyay maaha cidina lacag bilaash isma siiso Allahumma salli ala Muhammad marka haddaynu tusaalayaasheenii hore dib u eegno qof mesela gaariga oo kale su'aashu waxay noqonaysaa marka aad eegto itaalkaaga culays intee leeg baad qaadi kartaa su'aashaas weydiino marka aad eegto itaalkaaga culays intee leeg baad qaadi kartaa dabcan jawaabtu waxay noqonaysaa haddii aan leverage isticmaalo oo dabcan aan check-gan isticmaalana dee gaari culayskiisa intuu doon hal leekaada gaari weyn oo culus baan qaadi karaya haddii aanan leverage isticmaalinna dee kabdada bariiska baan la xiiqaya iskida dee inaan gaari qaaday iskida sidoo kale waxa weeyaan haddii markaan forex joognana markaad eegto xisaabta yar ee margin-ka ah xisaabta yar ee broker-ka ka taala markaad eegto contract intee leeg baad geli kartaa suuqanaad ka geli kartaa marka jawaabtu waxa weeyaan haddii aad
isticmaasho leverage-na contract weyn baa lagu ogol yahay inaad gasho oo sida standardka ah 100 kaasa مثلا haddii 100 into 1 lagu siiyo kale waxa weeyaan halkaaga dollar wuxuu dhigmaa 100 weey 1 milyan baa ku geli karta haddii aan leverage isticmaalna dee waa sanadida isbedelayso oo iyaduna waxa weeyaan marka macnuhu sida waxa weeyaan erayga leverage waa eray meelo kala duwan loo isticmaalo allahumma salli ala maxamed مثلا imika kala hadan caadiya tusaale yar oo kale kusoo qaadana sharaa'igo kale مثلا kambaniyadana caadiga dahabshiil oo kale waxweyn maxaa sicday waxa weey input yar buu bixiyay wuxuu isticmaalay wuxuu leverage gareeyay aqoontii dadka xirfadii dadka oo aragnimadii dadka dadaalkii dadka fikradii dadka dad buu hawlgeliyay nidaam buu sameeyay nidaam shaqeynaya isaga la'aantii buu sameeyay system buu sameeyay wuxuu leverage gareeyay maxay dadkii buu leverage gareeyay markaas ay soo baxday jawaab weyn ah in company-ga weyn oo dadna u faa'iido weyn ay soo baxday marka waxa weeyaan input yar oo aad geliso oo dadna mashruucaad input yar geliso oo natiijo weyn dadna ay soo baxdo weeye macnaha asalka ah ee leverage weey اللهم صل على سيدنا محمد ما aha marnaba waana la khalad fahmin leverage marnaba ma aha deyn ma aha deyn cid ku siisay ma aha cidna deyn bilaashays ma siiso intaasaan ku soo koobi lahaa اللهم صل على سيدنا محمد waxa weeyaan cidii qabtay su'aalo ku adkaaday marka laga hadlayo forex ku adkaaday waxa weeyaan ciwaanada muuqaalkan hoos yaala ayay ku soo diri karaan jawaabahooda si loo siiyo jawaabahooda marka si looga soo jawaabo اللهم صل على محمد waa inaanad yarama inta gobolka gashay yaram mala awaalin waayo professorada xataa dadka professionalka ah ee gobolka wax ku qoro dhaqaalayahanada qaarba sharaxa dadka si ay isu leeyihiin qofka u fududeeyo buu qofba sharaxa meel buu la tagayaa marka hadduu mid ku bixiyay tusaale ahaan deyn ku bixiyay wax kale ma aha markanaad gaariga qaadayso xoogaad ku qaaday midayn cid ku siisayba ma hadeyn cid ku siisay ma marka waxa weeyaan sharaxa uun yani waxa weeyaan waa inaad wixii su'aalaha aad qabtaan emailka igu soo diri kartaan fadlan haddii aad ku cusub tahay اللهم صل على سيدنا محمد channelka Home Capital Network subscribe sar sidoo kale like sar haddii inuuna astiri موضوعا waxbaad ka faa'iiday اللهم صل على سيدنا محمد انت سكسو كوبي لها وشمارك محمد علي مدح برنامجك Home Capital Network وإذن له نبت قليل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.